shacbiga waxa dimuqraadiyadda loo sameeyay in laga baxo oo doorashooyin iyaga 3 sano hor taagan gudiday waxa way diideen 2 sano ay markii dambana khubara waxa way commission oo aqoonsadeen oo soo saareen marka waxa way xisbigani waa xisbi wareer siyaasadeed oo soo waajahay waxaanu mana haystaan istaaqiye siyaasiye oo ay dalkan ku hogaamiyaan ama ay ku caaridaan oo shacbiga reer Soomaaliland u shaqeeyaan meesha inuu biir doorsoon jiro oo madaxtinimada mas'uuliyadeeda laga leexinayo waxa daliil ah doodayna kamiska taalo hada igu dhig madaxweyne biixo magacaaba ku riyoodaad ugu tiri hal lay dareeriyo qaranka loo dhisay si aqoonta dhalinyarada ay u koraacdo war dhagax dhig looga baanay sheeg 3 sano joogtay anaga aan riwaayada ka shaqeynaysa mudane Cabdinaasir afayeenka xisbiga kulmiyaad niyad aaminsantay musuqmaasuqu inuu Soomaaliland ka suulay oo aanu musuqmaasuq jirin war xukuumadda afmisharada aad ka midka tahay suulisay 3 sano u dhamaaday oo sanka laga iska daa Soomaaliland inay MCH ka dhisaan iska daa inay cusbitaal ka dhisaan dhaqaalaha ugu badan ee muwaadiniinta Soomaaliland wuxuu ku baxay dhaqaatiirta Turkiga madaxdaad cayda shahaadad ku sidataa kulmiya taayay inta qortay meel garanaysa dabal sheeg inta qortay buugan waxa qoran wasiirka warfaafinta Soomaaliya aad u dirteen baa qoran Ismaan Dubad baa buugan taladii uu Faysal ku siiyay qaado oo ahayd wax wadani ka xishoodo ha ku hadlin adigu haday ay cid ku helaysaa afayeenka kulmiya qolay ayda Maxamuud Xaashim ku soo buuga kulmiya u sidato war buuga kulmiya sidato ee jeceshay miisaaniyadana soo qaado wada qaran maxaa ka qabad buuri wax shakhsi ma yaalo wax shakhsi meesha ma yaalaan qodobayso ku soo dhaw barqad adiga maadsan waxaanu ka sameeynaa nabad raadin ceeri gaabo hospital baan ku dhisan umada u sheeg hospital ceeri gaabo ka dhisan 3 sano xanaanaydan ka dhisan waxa tiraahdan boorman hospital weyn oo isku filnaansha ka dhisan maxaad ka dhisteen waxay ku jirta meesha la yiraahdo burco maxaad ka dhisteen waa kuwii siyaad bariye Ingiriisku ka tagay bal inaad hijiyeysan waxa ku sheegaya war Ismaan Dibadii xagga bax war buugani waa kan ku guuleysteen dalka ku hantiyay adiguna waa kaad ku dhacday dhammaada todoba baxay maxaad guuleysan dood waxay tahay maxaa la qabtay 3 sanadood maxaa sadhiman maxaa la gabay maxaa la qaban doona maxaa hadsan inamada dhibooyada la geliyay ee la soo saaray ee magaalada la yiri hay'ad kastaba iyadoo 7 qof xafiiskii ay joogeen la yiri kuna ku darsan war waa gobolkaad codka ugu badan ku guuleysatay war waa gobolkaad codka ugu badan ku guuleysatay inaad buundo u quuri weydo qofka mas'uuliyadda ay ku fashilmaan bal dadka dama charity organization ma ka soo bixi ka kama siyaasadda